waxaa khilaaf iyo xifaaltan xagga xiriirka imika uu ka dhex qarxay wiil lagu magacaabo cabdifataax kaasi oo ka yimid dalka Sweden islamarkaana ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda imika cusub ee jiilka dambe. Fanaankan ayaa waxaa lagu soo waramayay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku sugnaa magaalada Muqdisho in xiriir hoose uu la lahaa gabar lagu magacaabo Happy Xilwa. Happy ayaa ka mid ah gabdhaha TikTok-ka caanka ka ah, waxaana jiray dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo Happy ay wax isla jili jireen, inkasta oo lagu xamanayay muddooyinkii ugu dambeeyay in wiil lagu magacaabo Kashka xiriir jacayl uu kala dhexeeyay. Si kastaba ha ahaatee, saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaa soo ifbaxaya khilaaf iyo xurguf cusub oo Cabdulaahi Kashka iyo sidoo kale fanaan lagu magacaabo Cabdifataax dhexdooda ka bilowday. Arrintan ayaa waxaa haddii aynu dib idin xusuusino bilowgeedii ay kasoo askuntay ama askumatay kadib markii Cabdifataax uu kasoo caga dhigtay gegida diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cadde airport ee magaalada Muqdisho, isla markaana halkaasi uu kusoo dhaweeyay Kashka. Wixii intaasi ka dambeeyay, Kashka oo la sheegayay in xiriir jacayl uu kala dhexeeyay Happy Xilwa, isla markaana muddooyinka ugu dambeeyay khilaaf dhexdooda uu ka taagnaa, ayaa la sheegay in jacaylkiisa uu ka faramaroojiyay Cabdifataax oo dalka Sweden kasoo boqolay, waxaana la sheegayay in dagaal dhexdooda kasoo qarxay, sidoo kalena uu arrinkan u adkeysan waayay Kashka kaasi oo la sheegay in uu abaabulay dagaal isla mar ahaantaana uu waxyeeleeyay Cabdifataax. Imikana la sheegay in dhaawacyo fudfudud ay soo gaareen kadib markii Cabdifataax la bartilmaameysaday xilli uu marayay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaana soo baxayay arrinkan dagaal hoose oo imika ka dhex taagan dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool, waxaana dagaalka uu salka ku hayaa gabadha lagu magacaabo Happy Xilwa. Happy Xilwa ayaa ka mid ah gabdhaha TikTok-ga kuwooda loogu jecel yahay, inkasta oo muddooyinkii ugu dambeeyay sare u kac uu ku yimaadayay ama ku yimid dhanka hadalhaynteeda, sidoo kalena muddooyinkii ugu dambeeyay ay waxoogaa markaasi kasoo muuqanaysay dhanka fanka, waxaana dhowaan dadku ay aada u hadalhayeen hees ay kasoo muuqatay oo uu ku luuqeynayay alfanaan Qamar Suugaani, iyadoo sidoo kalena geesta kale la arkaya iyada iyo sidoo kale Qamar Suugaani oo aada isugu dhow, isla mar ahaantaana ay ka muuqato daneyn, inkasta oo arrinkaasi ay ku tilmaamtay waxba kama jiraan. Sidoo kalena waxaa lagu xamanayay Cusmaan Ozi wiil la yiraahdo oo xiriir uu kala dhexeeyay Happy, inkasta oo markii dambe uu soo baxay isla markaana banaanka yimid xiriirka Cabdulaahi Kashka iyo sidoo kale Happy Xilwa. waxba hadalka ayaan idinkugu daalinaynay. Happy Xilwa ayaa la arkaya iyada oo bogogeeda kala duwan sida Instagram-ka soo dhigaysa qoraallo kala duwan iyo sawir ay sitaan qoraalkaasi oo waxoogaa ay ka muuqato in daneyn ay u muujinayso wiilkan ay aada isaga agdhawaayeen ee la yiraahdo Cabdifataax. Haddaba Cabdifataax ayaa ka mid ah fanaaniinta kuwooda fanka muddooyinka ugu dambeeyay kusoo biiray, waxaana magaciisu yahay Cabdifataax Albakri. Ninkani waxa uu ka yimid mid ka mid ah wadamada Scandinavian-ka, sidoo kalena dalka Sweden uu isagu kasoo socdaalay si uu usoo gaaro magaalada Muqdisho, waxaana ujeedka safarkiisa uu ku saleysnaa si uu uga miro dhaliyo hamigiisa. Midda koobaadna waxa uu ku taamayay in uu noqdo xidig laga daba dhaco, maadaama magaalada Muqdisho ay aada ugu badan yihiin fanaaniin fankoodii aada u sareeyo, sidoo kalena fanaaniin tayadoodu aada u xoogan tahay, iyo sidoo kale abwaaniin kuwaasi oo uu doonayay in ay u sameeyaan ereyo iyo mulxamiistayaal oo uu doonayay in heese kala duwan uu ooda ka qaado, isla mar ahaantaana waxoogaa dardar faneed uu la yimaado. Si kastaba ahaatee, waxaa aada markaasi dadku ay u hadalhayeen xurguftan imika ka dhex bilaabatay Cabdifataax iyo sidoo kale Cabdulaahi Kashka. iyo Happy Xilwa ayaa la sheegayay in inkasta oo ay xiriir hoose lahaayeen, waxaa dibadda yimid khilaafkoodii iyo xurguftii u dhexaysay, waxaase sidoo kale arrinkan sii huriyay kadib markii Cabdifataax uu meesha yimid, sidoo kalena la sheegay
in Happy iyo Cabdifataax imika ay lihiin lamaano doonayo in ay gargaadiyaan xiriirkooda cusub sidoo kalena ay ka miro dhaliyaan noloshooda. waxaana dhinaca kale marka loo fiiriyo Cabdifataax oo qurba jooga uu helay Janis sidoo kalena xilwa ay dareemayso in Janiskan ay doonayso inay kaga faa'iideysato maadaama ay u hanqaltaagayso dalka dibaddiisa. arrimahan oo idil ayaa ahaayeen kuwo markaasi baraha bulshada si xoogan u qabsanaya. Happy waxa ay ka mid tahay gabdhaha TikTok lagu jecel yahay dhowaan ayay ka miro dhalisay hamigeedii ahaa in milyan ay gaarto dhanka TikTok maadaama ay dad badan ku xidhan yihiin. waxaana la dareemayay isjiid xagga dhanka xiriirka oo Happy iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyadoo ay jirtay safar ay amaba ugu kictimeen magaalada Hargeysa ee dalka Somaliland, halkaasi oo Happy iyo sidoo kale Ozzy arrimahoodii ay soo babaxayeen sidoo kalena ay jirtay arrimo kala duwan oo xagga markaasi hadalhaynta ah oo Happy iyadu laga muujinayo dhanka social media. imika waxaa leeyahay Cabdifataax iyo sidoo kale Kashka ayaa arrinkoodii meel xun gaaray maadaama anirahadi Cabdullaahi Kashka uu dareemayo in laga faramaroojinayo gabar uu aad indhihiisa uga jeclaa sidoo kalena uu mustaqbal ka doonaya. inkasta oo labadoodii isfahankoodii muddooyinka ugu dambeeyay madmadow iyo kala shaki uu soo kala dhexgalayay isla mar ahaantaana khilaafkoodii uu cirka isku shareerayay, hase yeeshee Cabdullaahi Kashka ayaa la sheegayaa in uu weli farta dhexda ka qaniinsan yahay oo uu doonayo in Happy uu dib u soo ceshto inkasta oo dhexdoodu dagaal uu ka dhex qarxay. si kastaba Kashka ayaa isna waxaa leeyahay waxaa muddooyinka ugu dambeeyay laabtiisa ay ku adkeed in uu ka tiro oo uu ilaabo xilwa ama Happy maadaama jacayl dhaba uu u qaaday. Happy ayaa dhinaca kalena waxa ay imika leeyahay u ruqaansatay dhanka wiilkan cusub ee magaalada Muqdisho dhowaan uu soo gaaray ee dalka Sweden ka yimid maadaama ay isugu yimaadeen dhowr aroos oo ay iskala qayb galeen sidoo kalena halkaasi ay ku dhexmaraysay waxoogaa markaasi wada sheekeyn iyo soo dhawaasho la arkayay iyagoo isla ciyaarayo goob aroos oo uu ku sugnaa Cabdifataax al-Bakri. arrimahan ayaa waxa ay qabsadeen social media dadweynaha iyo aragtidooda ayaan doonaynaa dhanka commentiga in ay nagu la wadaagaan bal sida ay u arkaan iyo waxa uga baxay ama waxa kaga baxay arinta dhanka hadalhaynta ee social media. dadweynuhu maxaa ka cusub arrimahan, maxaase kaga baxay, sideese u aragtaa? waa qodobka aynu doonayno in dadku ay ka faaloodaan. subscribe inoo saar channelkan haddii ay tahay markaa koowaad ee aad kusoo biirtay, like garee muuqaalkan, la wadaag asxaabtaada. waxaan kuu rajeynaynaa in muuqaalkan uu gaaro dad badan oo inagu xidhan sidoo kalena dad badan ay gudoomi doonaan muuqaalada iyada dambe aan soo gudbin doono. waad mahadsantiin.